ويذكر بما عنده من إمكانيات ولتذكر. إذن أيها الأحبة تلدوا حويا إلهينا أبوري با يقانا نفتني وحي كو إصلاحيس سقا أبوري سقانا قرنيا وحي كو إصلاحيس وحي أي كو إصلاحيسينا الرسوش اللي نوغو سودي كديري قلنيا وانا فيليا إمي كباينا سميسان دراسدو iyo cilmi baarisyo kala duwan roobka iyo raxmadda Ilaahay shuba ee cirka uu ka keenaa badda iyo bariga si isku mid ay ugu daan bariga ama dhulkaase waxay ka soo saaraan nabaad iyo doog xataa haddii ay ciidu qallasho balse biyaha roobka ee Ilaahay cirka ka keenaa biyaha badda ee dhanaan waxba kama bedelaan geesinimada kaliya waxaad u baahan tahay geesinimo in aadan ka baqin mustaqbalka in aadan ka baqin isbeddelka in aad hor istaagto dabaylaha cabsida kadibna aad wajahdo waxaa la yiri doontu markay xeebta ku xiran tahay waa aamin khatar kuma jirto laakiin arrinkaas looma samaynin waxaa loo sameeyay in ay dhex mushaaxdo hirarka waaweyn gudaha fog ee badweynta cabsida badan sidaas ayaad la mid tahay laguma samaynin in aad gacmaha isi saarato in aadan waxba qabanin in aad baqdo isku qalabay geesinimo iyo dhiiranaan kadibna fooda geli hirarka nolosha ee aad ka baqayso waxaad rabtaa in aad hawl qabato laakiin waxaad ka baqaysaa fashil naftaadu waxay ku leedahay waad fashilmi waxaa lagugula talinayaa in aad dusha uga istaagto cabsidaas kadibna aad ku dhaqaaqdo qabashada hawshaas rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqono si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa cid kale waxba ka bedeli mayso haddaan aqoontu kaa bedelin adna aanad isbedelin haddaad imika xaflad aroos qabato ood ka qayb gasho soo ma qiyaasi kartaan dareenka farxadda leh ee raynraynta leh ee qusulka leh ee qobka ciyaarka leh ee xafladda aroosku ay wadato nin carbeed ayaa nolosha ku tilmaamay alxayaa imaa muqaamara jarii'a أو لا شيء نلاشو واسبيمين إيرن أما وحبا ما أهن وحال يري 20 سنة كدب وحاد كشلاي هولها آذان قبانين كبضان انت أتكشلاي سهولها أتقبته حتى لغيابا إن أتكفشلنتي وحاد أباهنتي جيسينيمو سياد سريرتا معان كبضان وكعد الصباح دي جيسينيمو أي أباهنتي إن أتبوك سوقادو kadibna aad akhriso waqti naftaada ay ku leedahay maya moobilka ayaa ka fiican geesinimo ayaad u baahan tahay si aad saaxiibada maya ugu dhahdo hadday wax aan ku anfacaynin kuugu yeeraan meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaa waa jidkii nabi maxamed ina raacdan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaa dadka ha xamanin ha caayin ha maagin أخلاق هجاجي بنادم كسفي عنه لدقن وحاد كحوق روتي وعدالة سماه صلاة دي الزكاة دي عبادات كاغا سماه أخلاقيات كاغا خدقن وصف وإني ولباء ووضا إن لعقوا باهن ماها يا مقع يا ماموس ومباهن وإن قف ولباء وودي كره إذا وحان رباونا ندن إلهضو قوش النبتا سيدين لو قادا هدين ليلي dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nabi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nabigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii raacaana jannu geli buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday haddaad si aas ama geeri tagto waa garan kartaa in shucuurtaadu taa ka duwan tahay warsidii xafladda aroosku kuu xasuusinayso dhaldhalaalka iyo hawooyinka nolosha aaskuna kuu xasuusinayo in aakhira jirto noolana dhintay yahay adigana maalin maalmaha ka mida wadku kugu soo xaadirayo aqoontu ha kuu xasuusiso in dalkaaga iyo dadkaagu ka mid yihiin dunida saddexaad oo dama adiguna iftiin iyo tooshiya naldaara aad u tahay qof kasta oo xorriyadda u halgamaa si uu xorriyadu ugu noolaado
dhimashuu u badheedhaa qof kasta oo nabadgelyo u halgamaana si uu nabadgelyo ugu noolaado naftuu u huraa. geesinimo ayay u baahan tahay in aad cabsida naftirkeeda ka xorowdo, in aadan ka baqin cid aanan ilaahay ahayn. geesinimo ayaad u baahan tahay si aad u damiso shahwadaada una xakamayso. طالوت markuu ciidankiisii soo hor istaagay ciidankii Jaaluud waxaa imtixaan looga dhigay in ay naftooda ka adkaadaan ka hor inta ayna cadowga ka adkaanin. waxaa lagu imtixaamay in ay naftooda ka celiyaan cabitaanka biyaha, in ay naftooda xakameeyaan markii laga reebo wax yar oo ay sacabkooda ku qaataan. waa imtixaan ah ilaa aad naftiinna ka adkaataan kama adkaanaysaan ciidanka Jaaluud. idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay, kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaad haysanin, kuma xidhna inaad madax tahay iyo inaanad ahayn, kuma xidhna inaad cilmi badan tahay iyo inaad cilmi yar tahay. waxay ku xidhantoo keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeediso, directionka aad u jeedeen raacaysa. ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa? waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya, adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus laba. xagga naartana intaba waa lagu mari karaa. labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu طariiqa xaqa ayna tusiyo. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا إلى ليس ذاك محن إلى يرتقي إلى الويل